دشي سقدا انتي لا دغدا دولة درجا وحدا حشا وحد يديدو نمدير اللي بتاوصو دقستي نينكي سنكتا دشي سقدا نينكي سنكتا دشي سقدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقبهي قرك السوماليلان أي إدين سو جدينية برنامج كني أو برنامج كسابسن. كلام ده برنامج كسابسن عن دونا صدق سنضاد أو جمهورية السوماليلان أي تشرتي أي مدح بناني دي لصون نقطة أو هيستي أي ديسنايد محا أوقف صومي محا لقى بران كريا محا يسوكر بسي maxay si u baahan tahay oo dunida ay ka rabtaa Soomaaliland barnaamijka koowaad ee taxanaha sodon guurada ee Soomaaliland ay sodon jirsatay waxa igala qayb qaadanaya marti sharaf badan oo aan ku amaanayo ugana mahad celinayo waqtiga qaaliga ah ee ay inasiiyeen martida barnaamijkan runahan marti iyo mudanaba weeyihiin oo Soomaaliland waxa weey waa dad xariirteedii kamida dhinaca midig Maxamed Cabdi Daawud qoraa siyaasi banasaab hore oo soo maray gobolka Murudsheex Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku xiga Maxamed Cismaan Fadal waxa weey دكتور محمد عثمان فضل وانين أقويهنا وانين سياسية وانين وسير كسر نقضي دولته الصوماليلاند خاصة ضبيعة سجاشماتك وسير قرشين تجمهورية الصوماليلاند بوها رجي وسير ده هاي برجع عالم كوسدي قوليه وسير ده تشيلنا كمت بوها لنا عيب بديحنا وحفر ده إنجليزكم حيو أورنجرين the golden lady بأورنجرين مس iron lady بأورنجرين مس مارغريت تاتشر وحوي هوين إذا ذهب كاهي الصوماليلاند مرو إدنا آدم إسماعيل دكتورة إدنا وأرجنما دير وحي أولى ذهي إسرائيل يمد الماضي صوماليا الصوماليين لجور هذين يكون يسار بقول اللي حكي ومرودي برايم مينستر كي قدام بيجي دولة دي ريت كاها صوماليا كوني سجال بقول تطبيق لحدكي إلا سجال لحدكي الله نحرس محمد حاج إبراهيم عقال ما ترى وحي كم تاي ضدك أقوانتا إتال كبجلية قرنمة الصوماليلاند وح وقبشة شعبي الصوماليلاند وأساسها جامعة عسبتالك إدنا ماتيرنتي هوسبيتال وأنا إرجي ولي بقول أولية سيدي الصوماليلاند أي حقوق ذا أهل الهيد dhammaantiin ba barnaamijkan baan idinku soo dhaweynaya Dr. Maxamed Cismaan Fadal kulley haddii aad qurbaha joogtay iyo haddii aad qolqolka joogtay labadaba waad la socotay Soomaaliland sidii ay ku dhalatay 1991 haddii aynu wax yar cajalada dib u riixinayna waxaa dadka aynu xusuusin karaynaa in burburkii ugu weynaa uu ka jiray dalka dadku ay xiriiq qaxooti ku maqnaayeen magaalooyinkii la gubay oo la dumiyay wadan yacni halka nolosha xag eberka ka xiga ayaa la isugu yimi haddana waxba la yaabiyay oo raqba oo ku rigeeda la dhisay sidee ayay ku dhisantay Soomaaliland masees lahayd halkaas ay gaari doontaa waqtiga riyadii lagu jira marka بسم الله الرحمن الرحيم برضو السلام يا بهدن أديبيد ما يدعى تلفزيون كقرنكا ووزارة دبا تذكر هير Soomaaliland waan salaamayaa oo wali waxaan ku sii hambalyeynaya sanad guurada aynu nabad iyo barwaaqada ku soo gaarayno su'aal aad muhiim weeyaan qaybta ugu horeysa ee dadka xasuusin lahaa waxay inta aad sheegtay
qofka reer somaliland bal hadda markaad doodan ama hadalkan aanu ku jeedin inaad dhegaysato dib u tag maalintii aad dalka soo gashay ama 1991kii duruufteenna iyo xaaladeennu siday ahayd maantana u eeg macnaheedu way dhammaatay maaha maxaynu ku dari karnaaba markaa inoo imanaysa haddaan usoo durko xaaladda waad sheegtay burbur iyo digaandigaha ayaa loo yimid dad qaxoontiya oo jiitamaya oo dadkaa sawirkooda haddaad aragto maalintii aynu sawirada dib isu tusnaabaynu u baahannahaye geesuhu halkaasay camanku ku aasan yihiin duruufta iyo dharkooda dhulku siduu ahaa waxaynu qabsannay wax miraka lagu tilmaami karo adduunka laakiin dad yar oo intaa leego iyagoo tabcaan oo jiitamaya halkaa soo galay marka wuxuu ugu horreeyey waan ku qodobaynayaa kow nabaddaa ka muhiima asaasku markaynu isu nimi caqligeennu wuxuu kulli wada galay in nabad la galo marka nabaddaa shirkii ugu horreeyey waa kaa aynu isku waafaqnay isku hor fadhiisannay ee aynu dowladnimada ku gooni isu taagga ku goosanay buu ahaa kaa markaa waxa raacay haddaan sooba koobo intaas oo shir dhowr iyo 30 shir oo iska dambeeya ayay nabadaynta somaliland ku qabsoontay qaar baa u waaweynaayoo shir qarana kaa burce markaa la joogay kii boorame oo ubuucda ahaa dowlad dhiska kii haddii baydmaayo ka dambeeyey nabadaynta isagana hargeysa lagu qabtay 97kii qaar baa laakiin qaarna waxay ahaayeen gobol qaarna waxay ahaayeen degaan qaarna waxay ahaayeen deris dad meel wada degan kulli waxaynu mas-uuliyad iska saarnay inaynu nabadayno haddaynaan halkaas salka u daadeginna maynaan gaadhneen waxaynu ku fadhino salka iyo adagee ay ka dhaqaaqi laadahay horta waa kaa waxaa markaa inoo raacay inaynu dowlad markaa yabanay snm ka soo jeeda 2 sannadood taasu nabadayntii inkastoo qalaanqalba jiray laakiin nabadayntaa ugu muhiimsanayd dabeetana shirka boorame waxaa go-aanka ugu horeeya haddaan soo koobkoobo waxaynu go-aansanay nooca dowladda aynu qaadanayno oo aan hawl yarayn inaad go-aansato waxaynu isku haynay inaynu dowlad madaxweyne qaadano iyo inaynu dowlad baarlamaan qaadano iyo inaynu 3 madaxweyne samaysan intuba dooda way tilay shirka laakiin waxaynu goosanay mid muxuu ahaa talaana lagu gaadhaa nolosha taladaa waxaynu goosanay taa madaxtooyada inaynu qaadano axdi baynu samaysanay saldhig inoogu noqda dabeetana wixii ka dambeeyey intaa waxay noqonayaan inaynu dowladaha hay-adihii dawliga ahaa oo markaa la asaaso oo wasaaraddii la asaaso oo wasaaradaha matalan siday ku dhasheen carruurtiina dhallinyarada waxaa arkaysaan wasaarad iska dhisano wasaarada qaar baa intooda badan dadkii xamar ka soo qaxaya dadkii halkan dowladdu ka burburtay unbaaba is urursaday oo meel yaro fadhiistay halkii unbaa loogu sharciyo lagu dhiso oo laga dul dhisay oo dowladdu dabeetana shuruucdeenni baarlamaankeenni inagii ku dhisnay innaga oo isqadarinayna oo muran yacni qaydhinka kusoo qaybsanay shirkii boorame oo dabeetana nidhi ka baarlamaanka ka kalena dhaqankeenna marka wax walba waxa isbarbar socday dhaqankeenna iyo diinteenna iyo haddii beedmaayo iyo taladeenna intaa markaynu dhisnay waxaynu markaa gudagallay haddii beedmaayo waxaynu u soo gudubnay udub dhexaadka dowladnimo oo ahaa distoorka dalalka waxa burburiya ilaa maanta wataa soomaaliya samaysan kari weyday waxa dalalka burburiya dalalka ka soo baxay dagaalka ama ka soo baxay dictaatoriyadda marka ay u gudbaan ay doonayaan dimuqraadi inay noqdaan waxa burburiya ay ka kici kareen waa distoorkeenii sidaynu doonaba aynu la soo galgalano mar laba samayno dabeetana caqliga isu geyno waxaynu ku waynu samaysanay 2000 samaysanay 2000 markaynu samaysanay afti baynu qabsanay aftidaas distoorkana way sharciyeysay gooni isu taaggiina way sharciyeysay 2 arrimood waayo distoorku gooni isu taag ayuu ku fadhiyaa qof bedeli karaana ma jiro innaga oo isu wada tashano oo u taagan mooyaane marka intaa maxaynu horta ku gaadhnay intaa waxaynu ku gaadhnay wada tashi waayo distoorka markaynu furfurnay dimuqraadiyadii inoo furfuray xisbiyadii baynu samaysanay commissionkii baynu samaysanay sharciyada doorashadaynu samaysanay sida loo qabanayaynu samaysanay waxaasoo dhami markaad leedahay waxaynu la soo marnay iyo kacakufkaynu la soo marnay iyo isxagxagashadaynu la soo marnay waa garanaysaa waxaas maxay ku qabsoomeen wada tashi xukuumadda
xeer dejinta si bulshada rayidka iyo dadweynaheena waa kow waxaynu ku soo gaadhnay isu tanaasul aynaan cidi inoo yeedhinin oo cid banaanka uga yeedhanine aynu inagu goosanno oo isu tanaasulno waxaynu ku soo gaadhnay xorriyadda saxaafadda ee wax walba dadka wacyigelinaysa ee haddii beedmaayo oo adduunka ay ku yar tahay xorriyadda halkaa wixii doona hayna kala gaadheen laakiin xorriyadda halkaa aynu ku haysanno dadkeennu halkanu ka xoroobay qof maanta aad mikrofoonkaa u dhiibto oo dib eegaya oo baqanaya ma jiro qofku wax allaale wuxuu doono ma jiro waxaan u malaynaya adduunka haddaad soo wareegto inaanad ka helayn islaanta tamaandhada haysata haddaad u dhiibto madaxweynaha waxaan odhanayaa ayay odhanaysaa war waa maskaxda halkan weeyaan halkaynu ka xorooni ee dadkeenu ka xoroobay ee aynu cid walba dheernahay waa halkan waa tay cisbaan halkaa aan kugu yarakayo aad iyo aad baad u maadsantay waad ka taariikhaysay doctora edna aadan ismaaciil in yar baan adiga dib kuu celinaya khibrad baad na dheer tahay kolley in badan oo aan ku jiro aasaasihii somalilandta casriga maxamed xaaji ibraahim cigaal aqoon baad u lahayd isagoo prime ministera ama ra-iisul wasaare ah markii la inqilaabay aqoon baad u leedahay waqtiyadii soomaaliya ay raadqaadka ahayd ee isku biirteen aqoon baad u leedahay hamiga ku jiray maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo dulmiga ku dhacay somaliland waagaaba kasoo bilaabmay maxaad ka xasuuntaadu بسم الله الرحمن الرحيم رسول وناكسن بو هادلay fadal maxamed ismaan fadal aadi baan kugu mahadnaqaya taariikhda aad saa u soo taxday waa loo baahnaa horta israaca Somaliland iyo Soomaaliya kumu iman dawlad kale qabsatay oo intay soo duushay dal kale qabsatay oo maamulkeedii ka xoogtay ka boobtay wuxuu israacu ku yimid rabitaan ummadihii deganaa ee Soomaalida ahaa ee deganaa geeska Afrika ee shanta ahaa oo israadinay oo midba mustacmarad gaara ku maqan yahay Kenya weli ku maqnayd Talyaanigu in buu haystay waa intan Soomaaliya la yiraahdo Ingiriisku in buu haystay oo Somaliland Faransiisku dhinacan ayuu haystay oo Djibouti in kale waxay ku maqan tahay dalka Itoobiya shanta Soomaaliyeed inay israacdo ayay himiladu ahayd inay qolo qabsato ma yahayn rabitaan wada tashi kalgacayl iyo waxayd mustaqbal dhis la rabay in amuuraha wixii af Soomaali ku hadla danahooda ka tashadaan oo meel ka wada maamushaan oo maadaama dadku isku mid ahaa hadday tahay diin hadday tahay dabeecad hadday tahay dal hadday tahay dhaqan in ay isu tagaan iyagu ayahooda ka tashadaan rabitaankaasu wax qurux badan buu ahaa dadku way isu tagaa ceeb maaha in wax la wadaago African Union ka waa kan dad la badan ay isu tageen oo kala jaada kala nooca kala aragtiya inagu waynu isu ekayn isku dal iyo isku diin baynu ahayn isku dabeecad baynu ahayn niyadii wanaagsaneed ee Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed ay ku gashay israacaas sidii waxay Soomaalidu ku mahmadaan sidii loogu lisay looguma hambayn Somaliland sidii Somaliland ugu listay looguma hambayn waxay noqotay dal laga maroorsaday maamulkii waxay noqotay markii caasimadii la geeyay xamar markii la geeyay safaaradii xamar markii baanankii xamar markii dawladii xamar markii wixii maamulkii wixii dal lagu maamuli jiray markay xamar isugu tageen Somaliland way agoomowday muddo yar dabadeed waaba tii inqilaabkii dhacay 19 bishii December 10keedii oo xaadir ahaa oo nabarigu gaaray waa kii dhacay oo ay ka gadoodeen gardaradii ay arkeen in Somaliland loo geystay iyo niyaday la galeen inaan wax loogu qaban ilaa muddadaas mar la yara heshiiyo mar wax la yara qaboojiyo wax ma la yara toosiyo si walba ha ahaatee waa kii inqilaabkii 1969 kii dhacay ee afweena marorsaday horta halkaa ayaa horta dawlad dimuqraatiya oo ummad dooratay ugu dambeysay dalka Soomaaliya waa taa weli 30 sano muddada laga bilaabo dhowr iyo 50 sanadood waa taa isku qasan
xataa haddii aan la kala go'in oo aan 19 la kala go'ay hortii Somaliland waxay ahayd wax ka go'an Soomaaliya oo loola dhaqmo sidii dal la haysto oo mustacmarad xamar ka timi ay haysato oo xukunkii ka haysato oo madaxnimadii ka haysato ayuun baynu ahayd waxyaabo yar oo maxaan ku raayay horumar yar iyo wada yar iyo wax yar iyo sameersiisyo wax waa lagu sasabi jiray laakiin se waxay ahayd Somaliland mustacmarad la haysto oo xamar laga haysto ku dheeraan maayo taasoo waxaba intiina halkan fadhida dadkii qaxay sideedamaadkii ee waalid la cararay ee ku soo koriyay xariiqa xooti ayaa badankiinu qaarkiin ka mid yihiin oo 30 sanadood ka horteed waxaad ku maqnaydeen bom qarax baad ka ordayseen oo diyaarad duqeyn baa laydin kala baxsaday oo miina laydin kala baxsaday oo xasuuq baa laydin kala baxsaday oo badbaadin baa laydin la baxsaday midba meel firdadkaas meel gaarsiiyaba meel fog iyo xero qaxooti qaaxo waatan maxay ahayd meelihii xerihii qaxootiga ee Ethiopia ee kunka qof ku noolaayeen dadkii ku soo koray baa tiin waxaa soo dhanka kaalay ku noqon maayo waad ka dheregsantihiin gardaradii Soomaaliland loo geystay waad ka dheregsantihiin waxaan doonayaa maanta inaan ummaddu ay fahamto inaynu nahay dawlad 30 sanadood maanta maamulkeedii iyadoo gacanta ku haysatay qaangaadh baynu noqonay mar barad baa la yahay 19 markaynu waddanka xoreynay dadku wuxuu barad buu ahaa miinadan iskarow iyo dadkan bal isla doondoono ehelkii bal hadda bal burburkan dib u dhis ayaa itaalkeeni ugu horeeyay uu galay iyo labadeyntii iyo wada hadaladii iyo heshiisintii iyo maanta dawlad baynu nahay muruq leh way aragnimo leh qaangaadh ah maxaa la yiraahdaa marna waa dhalinyaro marna waa qaangaadh waa gadhmadoobaad tihiin garwaad gashaan waxaad tihiin qaangaadh baynu nahay maanta kuma marsoon karo dal ma maamuli karno marka anigu waxaan doonayaa dardaaranka aan siinayaa waxa weeye maanta aqoonsigeena qarku saaran yahay aad u soo dhawaaday waxyaabo badan oo ka marxaatihiin baa jira dawladda ayaa bareed maanta inoo aqoonsi warqadahoodii aqoonsiga keena aqoonsigu waa maxay waa taasoo isbiirsata oo bari dawlad kale saddexaad afaraad shanaad ilaa 100 iyo maxaan ku raaa 200 ee dawladda dalka jira intii danaynaysa inay heshiis nala gasho iyana ay ku soo biirto aqoonsigu waa ka marka maanta anigu waxaan oran karaa Soomaaliland aqoonsi way leedahay aqoonsigeedu way haysataa waxaan ku soo gaadhnay maamul wanaag dastuurka uu sheegayay fadal sheegayay ee aynu u codaynay ayaynu ku soo gaadhnay maxaa maanta hadaba la inaga rabaa maadaama aynu qaangaadhnahay gar wanaag baa la inaga rabaa maamul wanaag baa la inaga rabaa maarayn wanaagsan oo hawlaheena ku maarayn maanta shaqadu inoo bilaabmaysa aqoonsigu keeni maayo webiyaal malaba oo inoo soo dareera xooggeena waxaynu isagoo xalaal ku xoogsano ayaynu horumar ku gaari karaa oo aynu adduunka isku jeclaysiino oo adduunku inagu aqoonsado inaynu nahay dad heshiis laga geli karayo oo qowl leh dad wax lala qabsan karo bayacmushta laga geli karayo oo nidaam leh oo ammaano leh oo xafidaad leh oo sharci leh iyagana badbaadinaya ka inala galay heshiiskana badbaadinaya dawladnimada waa intaas oo la qorxiyo oo la xoojiyo la wada ilaashado la wada dhisto maanta shaqadu inoo bilaabmaysa mar haddii aqoonsigeena bilaabmay oo dawlad iyo 2 iyo 3 iyo 4 maanta ay safaarada ku leeyihiin halkan aqoonsi waynu haysanaa waxay naga dhiman wax weeyaan kursigii aynu fadhiisan lahayn ee aynu xaq u lahayn ee maanta gardarrada Soomaaliya ugu fadhido qaramada midoobay ugu fadhido oo aynu si sharci aynu ugu fadhiisano way xaq baynu leenahay inaga ka mudan iyadu waa taa dhowr iyo 50 sanadood dhinacay wixii uu kala wada garan la
waxay garan la'yihiin oo maamulan karan garan la'yihiin sidee baynu 500 oo qof sidee bay isugu tagaanoo madaxweyne ula soo bixi kara inanaguna waxaynu dhowr jeer 7 iyo 8 jeer samaynay doorashooyin dalka oo dhan ka dhaca oo 100,000 oo qof oo gobollo kala jooga oo tuulooyin jooga oo miyiga magaalaba jooga inay codkooda dhiibtaan oo intaasoo 100,000 oo qof yiraahdaan qofkaasaan u codaynay intaasoo 100,000 qofkaasaan u codaynay qofkii ay doonayeen ama dawlad hoose oo maxaan ku dhahay dawlad deegaan ama baarlamaan ama madaxtooye oo la yiri hebelo waa laga helay oo uu hambaliyay oo uu ku wareejiyay oo aanay marahayn oo laba ahayn waxa inagu aynu qabsanay ayaa way aragnaga dhigay waxa aynu qabsanay ayaa waajib inaga dhigaya inaynu taa ku sii wadno oo wanaagaas sii kordhino waayo qaangaar baynu nahay soo dawladda Somaliland waa qaangaar kelmadda waan ku celcelinaya garba laynagu leeyahay hadii layna yiraahdo maamulkiina yara hagaajiya xafidaadiina yara hagaajiya dawladnimadiina sii qurxiya waxa dambe inoo tahay laakiin stage baynu maanta taaganahay aynu ka duuli karo labadaba aad iyo baalalba inoo soo baxay ee baalasha inoo soo baxay si aynu ugu duulo inagay inagu xidhantay shicibkeena ku xidhantay ma wax wada qabsanay oo meel uga soo wada jeednay oo cadowga iska ilaalinay oo meelaha dhaliilaha farta lagu fiiqi karo iska toosinay mise fariisanayo ka kici garan weyn halka maanta inuu soo gaarnay horooga dhaqaaq garan weyn hadaynu isqabsano garbaha isqabsano oo inuu halka ka sii dhaqaajino ka sii qurxino ka sii wanaajino dawladaha lama jiirto adduunka maaha Afrika oo kaliya lama jiirto lagu tilmaamo dawlad wanaag ayaynu ka mid noqon doonaa la fariisan doonaa haddii kale waxaynu noqon doonaa kuwa leeyahay alla ma kuwaas oo kale dawladnimo ma istaahilaan oo ama Soomaaliya inuu u arag ekaan oo halkaas inuu hoos ugu dhici oo tacabkii galay intaas iyo 50 sanadood uu inaga khasaaray ama dawladaha wanaag lagu tilmaamo ayaynu ka mid noqon way aad baad maasantahay doctora carabka iyo cimriga baa Allah ku barakeeyo maxamed cabdi daawud aad bay fadal iyo idniba mataqaana Somaliland iyo ugu hadleen iyo waaqaci jiray mataqaana xaalkeeda maanta hadii adiga aan si kale ku weydiiyo Somaliland maxay kaga duwan tahay Soomaaliya oo xasaradaha iyo colaadaha hadii nabad soo doonjirsatay iyo dawladnimo soo doonjirsatay iyo ismaamulid soo doonjirsatay iyo wanaag soo doonjirsaday ay Somaliland ka jiraan Soomaaliya maxaa ka jira maanta maxay markaa Somaliland kaga duwan tahay Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan telefishinka qaranka u salaamayaa iyo dadweynaha dhageysanayaba mahad balaaran waxaan soo jeedinayaa maxamed iyo doctor Adna sida quruxda badan ee runtii ay arinta u qaada dhigeen su'aashaad weydiisay maxaan ku raahdaa inaga iyo Soomaaliya de waxay qabsadeen ma jirto waxa weeye waxa haya gacmo ajnabi ah oo xoog fara badan oo dana fara badan ka kala leh meesha oo aan danaysi ahayn maxaan aan u jeedinay u danayaan iyaga laakiin ka danaysay qaar badro ilaashanaya qaar bahal kale ilaashanaya qaar jaarnimo ilaashanaya qaar qolba wax kuwaas ku dhex jira waa ogtiinoo ciidamada ilaa hadda haya iyo sayihiin iyo wada aragtaa waxay soo saaraan oo de isku maamulaan ma jirto halka Somaliland ay ka qatanayd intaasoo sanado taageero dibadeed iyo maxaan ku raahdaa de cid ajnabi ah oo soo gurmataan baawisa amba baaris marka taa ka sokow ilaa hadda yani 30 sano way sheegeen maxaan ku raahdaa Adni iyo Maxamedba 30 sano waxay samaysan kari lahaayeen waxay ku kala socdaan inagana waad ogeydeen dastuurka dee wuxuu qaatay 4 sano ayuu ku qaatay 97kii Soomaaliya markii la codeeyay 4 sano intii yareedeen buuqayna marka laga reebo 95 laakiin laba kala bay ku qaatay sayde maxaan ku raahdaa 9 years amba 7 years badaba marka waa la dhameeyay waana loo codeeyay
isagoo dee dhammaystiran buu mataqaanaa markaa aynu oo u bilowno dee sheegaya markaa inaynu xisbiyo laga taga reerihii iyo odayaasha loo yeedhyeedhaya iyo waxaan dee lagu dhaqmaya ee maxaan ku dhahay soomaaliya imika curyaamiyey innagana haddaan laga hortegin dee inagu keeni kara maxaan ku dhahda setback inagu keeni kara ayaa la dhaafay markaasaa la yidhi xisbiyo siyaasadeed oo fikir ku wadaaga reer aan ku wadaagin gobol aan ku wadaagin laakiin ku wadaaga fikir ayuu mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dee dastuurkeeni qoray dee taasi waxa weeye wax goortay gaari aan iyaga dee aan la garanayn laakiin dee dhibaato aada u fara badan ayaa ka horeysa innagana dee dhib weyn oo aynugu hayaan ayaa jirto oo hadday isku yimaadaan dee cid qasbaysa ma jirto idhan war waxaana dee waa walaaladeen way inoo yimaadeen iyagaa bahasha inoo keenay yaa dal aynu gubaysanay mu ahayn waxaynu kala qoranay xataa way iska diideen waxba lama idinkuna maydu qorin iyaguna may qorin adaacadda maalkuu qabsadayba warqad qoro oo yidhi aniga dowladdeedoona aqoonsada United Nationka isagoo ignoor gareeyey Somalilandii la midowday ignoor gareeyey totally magacii dee laynagu ignoor gareeyey baynu ilaa maantana ku jira United Nationka dee Soomaaliya unbaa laga yaqaan waana warqad buu qoray isagoo loo ansixiyey marka taana weli inaga gardarro weyn oo culus ayay dee nagu hayaanoo hadday maanta inaga ina sii dayn lahaayeen dee iyagaynu badbaadin lahay ya waa kuwa inoogu dhowtad ceel bay ku jiraan nala soo dega ceelkii nagula dhacabay mataqaanaa ayay 30 sannadood mataqaanaa doonayaan waynu ka saari kari lahayn ama waynu caawin kari lahayn marka runtii dhinac walba markaad ka eegto dee laba dadoo dee maanta isku dhow ma nihin waxay haystaan iyagoo aqoonsi dee iska ya aan dee iska calaafaf faashuushood dee dadkaa u imanaya caynkaa oo inagu haddaynu haysano kaa dee iyaga laftooda aynu badbaadin lahayn iyo afrikaba waxba badan ka qaban kara maxamed cabdi daawud aad baad umadsantay maxamed cismaan fadal odayaashii somalilan intooda badan waa dhintay baa loo naxariisto guurtida ahaa nabadda soo yegleelay meel bay ina soo gaarsiiyeen haddii somalilan ay sidaa dimuqraadi u tahay oo ay 5 madaxweyne marayso oo doorashooyin ay hore uga soo dhaceen intaasoo doorasho haddana loo balansan yahay in doorashooyin kala dhacaan halkee baynu u soconnaa maxaa si wanaagsan in aynu sii horumarino oo aynu sii qurxino si 30 sannadood aynu soo jiray aynu weliba tadawur kale oo wanaagsan usii gaadhno waa su-aal wanaagsan bismi illahi raxmaan raxiim intaa aynu soo shaqaynay tacabka shacab iyo dowlad iyo civil society cid walba aynu kulligeen ka wada qayb galnay oo aan cidina meel iska fadhiine tacab aynu kulligeen wada leenahay intaa aynu soo samaynay meel baynu kusoo gaadhnay dowladnimadu sideedaba waxa weeyaan wax la isi saaray maalin walba ka maanta hayaa kii maalintii ugu horreeyay qabtay waxbuu dhigay hadduu madaxweyne iyo haddii dad yihiinba dowladnimadu waxa weeyaan wax la kala dhaxlo oo tacabku isi saarsaarma waana la sii hagaajistaa dowladaha inagu 30 sannadood sideeda waa wax yar marka loo eego taariikhda dowladaha la macaamilo qaar baa 1000 sannadood marka lagaba reebo kuwa dee 3000 iyo dee laga hadlayo dimuqraadiyadan iyo habkan dawliga cusub ee lagu dhaqmo dee 1000 sannadood bay qaartirsanayaan dimuqraadiyaddu iyo xorriyadda dadku halkay ka bilaabantay markii ay dadka isqabteen 1215 magna carta waxa la yidhaahdaa ingiriisku ay sameeyeen oo boqorkii kaga qaateen boqorkii ilaahayga sheeganaya xorriyaddoodii dadku ka qaateen taasay dimuqraadiyaddu ka dulisantay marka dadka intaa isoo dhabayay haddaad u tagto intaa isoo dhibayay soo shaqaynayay haddaad maanta u tagto weli dube iyo musbaar bay isdaba sidaano dowladnimadu waa musbaar iyo ma dhammaato jiilba jiil buu geynaya innagu marka waxaynu u soconnaa war intan markaan haddeer aynu lahayn eega bal halkaynu joognay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa inaynu nidhaahnaa 91kii ilaa maanta 30 sannadood mishwaarkaa aynu goynay caruurteenna iskuuladeenna jaamacadaheenna nabadgelyadeenna dowladnimadeenna yani markaad sidaa u eegto laakiin wax dhammaaday ictiraafkii waynu haysanaa addi waynoo sheegtay laakiin isaga oo aynu kursiga ku fadhiisanno
waa inaynaan ugu talagelin inuu Si dhib wax ku waliba leh. dhib ku maaragtay Dhib yaraan. si hawl yaraan ku imanayo Waat. waa inaynu u samaynaa eritrea oo inoogu dhow ama south sudan Hahi. 50 sanood 1956 bay sudan qaadatay Waat. 56 kula qaad dowladnimada Way. intaa way dagaalamayeen 2002 iyo 2011 bay xornimada qaateen waat way ku raaxaysanayaan maanta Aad iyo aad. horta wixii loo samro doonista ictiraafku keliya maaha inaynu dowladnimo iyo ku raaxaysi doonayno midnimadeenna iyo mabda keliyaynu ku wada soconno waxaa la weydiiyaa maxaa somaliland isku duubay isu haysta waxaynu isu haysanaa mabda baa meel inooga muuqda aynu ka midho dhalinayno isu raacsannahay horta kaa weynaynu isu raacsanaana waxaa kale waxa weyaan xukunkeena iyo hay-adaheennu hay-aduhu waa ilmaha yaree la korinayo waa in shuruucdooda mar walba la hagaajiyaa la dhabdhabaa Waat. haddaad runta doonayso aad iyo aad iyo aad bay intan dambe dowladda institutionskeedu nuxurkoodu u soo hagaagayaan Waat. marka cashuurqaadka la eego marka kala dambaynta la eego marka nabadgelyada meelaha yaryaraaye marka lande waxay naga kackaceen bariga markaad eegto saynu isaga deminay marka anugu waxay la tahay kow inaynu xeer odayaal arrintii dhaqankii odayaasha aqalkan waxaynu ugu talagalnay inuu dhaqanka iyo reeraha iyo diinta inaga qaabilo waat kaa aqalkaa in la yaro culo oo inoo xoojiyo arrintaa dhaqankee inaga baahday iyo malyaka suldaaniyadda kala daadatay inay gacanta ku qabtaan oo ay dariiqooda qaataan waat inagoo abaal ku qabna inaynu intii de aynu kusoo gudubnay haddii bedmaayo ta xisbiyada iyo ta dimuqraadiyaddana inaynu sii qorqorno iminka doorashadanu alxamdulilah rabbilcaalamiin way inaga yar jirteen bal hadda garta hadda inta inaga gaadhay waat waa inaanay marlabaadka inaga gaadhin ee waa waqtigeedii inaynu aynoo ka qabsanto. kornaa kororsi wax jadwal aynu ku dhaqaaqno jadwalka markaynu dhiganno haddaynu doono 5 doorashaba dad baa isu geeya Waat. isuba gee laakiin waa inaanay maalin iyo saacad dhaafin waat meelahaynu u soconnaa waa kaa waa inaynu aynaan isdhiganine maanta soo halkaa maynaan gaadhin Ahay. haddana khataraha inagu wareegsanay boqolkiiba boqol 19 way ka badan yihiin aad iyo boqolkiiba boqol way ka badan yihiin waat badda cas baa inagu wareegsan kuwaa aynu haysana inagu wareegsan gobolkiio Qiiqiyo, gobollo qiiqa iyo abbabaadkiisa. gobollada ugu dambeeya ee ku hadhay ayaa inagu wareegsan faqri baa inagu wareegsan istijiid baa inagu wareegsan inagu ogaawo ahay dowladaha xataa waxa isku wareegsan waxay haystaan dee kursi bay ku fadhiyaan oo cod bay haystaan oo meel bay ka kursi lahaan baynu dheerayno. meel bay kursi lahaan baynu Waa tahay. aad iyo aad baad maastay fadal doctor edna way aragnimada aad ka soo sheekaysay iyo dulmigii ku dhacay Somaliland iyo dhibtii soo gaadhay maanta jiilka inoo taagan yararka jaamacadaha dhameeyay dhalinyarada faraha badan leh waxa jira wax social media leeyahay ama baraha bulshada waxaad moodaa Somaliland in yararkeedii gacan weyn loo haadinayo oo in badani ay laablakac iyo taageero wax Soomaali leeyahay mataana ay in qarsata iyo in soo tufto oo muujisaba iyaga maxaad oran lahayd aad baad baasantay waxa horta waxa la yidhi Soomaalidu waxay tiraahdaa hebel baa ku caayay de muxuu caayay col baabaan nahay waat waaba colkiyo ha aalad helay ay kugu caayaan Way. oo adduunkana caayadaada ama waxay kugu tilmaamayaan ama kugu sheegayaan ama kaa sheegayaan ay kusii baahiyaan way dhalinyaradu dabcan waxa weeye dalka cadowga wuxuu eegtaa markuu doonayo inuu cadowga uu meel ka soo galo meelaha laga nugul yahay buu doontaa waat sida biyaha oo kale biyuhu meel ay mari karaan bay ay doontaa raadsadaan oo raadsadaan oo jilicsan way dhalinyaradu waa weeyaan jiil cusub waaye aragnimadii hore ay halkaa ku soo gaadheen way ka maqantay waat caqligoodu muu bislaan way ma oga waxay ku weynaadeen bas iskuul lagu geeye iyo internet iyo barwaaqaysi lagu jiro mataqaanay noloshii horumartay iyo nolol iyo fashion iyo Waat. wax diyaarad keentay wax markab keena iyo wax internetka laga dalbada iyo waat waxay nolol khiyaali ah oo ka duwantii halkaa lagu soo gaadhsiiyey ee aabbayaashood iyo awowayaashood ku soo gaadhsiiyeen
ee dhaqankeena ku salaysnayd ee itaalkeena iyo awooddeena iyo ku salaysay way yara ilowsan yihiin dabcan cadowga kuwaasuu abbaaraya way qofka adigoo kala ah u tegi maayo wayda waad og tahay halka aad ka timid ku socoto waxaad u soo martay halkaad maanta joogto waad garanaysaa lagu duufsan kari maayo laakiin dhalinyaradii waxaa lagu duufsadaa oo maxaa haystaa Soomaaliya lamaba aqoonsanee jawaabtu waxa weeye dhalinyarada laga filayaa inay yiraahdaan de aqoonsiga iyagu nabadgeliyaan aqoonsigu haddaad haysataan Soomaaliya aqoonsi maxaad faa'iido ku qabtaa annagu haddii ay noqoto labada la isbarbar dhigo aqoonsi la'aan iyo nabadgelyada aan haysto nabadgelyada aan haystaan ayaan ka doortay dabcan qof markuu ku caayo odhan maayo qofkaas waa qof wanaagsan waa qof odhan maayo wax ceeb aad leedahay inaad lahaynba wuu ku doonaya marka dhalinyarada waa la duufsaday ka weynaada oo mar haddaad caqli leedihiin aad kuba isticmaashaan internet iyo mobile iyo Instagram iyo Facebook iyo waxyaabaha social media ma wuxuu doonaa ha ahaadee mar haddaad kaaba baratay barana warayso waalidka halkeed hooyada kugu dhashay warayso awowga wixii uu soo maray kaasaa ku jecel kaasaa ku soo koriyay kaasaa runta kuu sheegaya ee isaga warayso ee social media waxaanu kaa sheegayo ama kugu sheegayo ama dalkaaga ka sheegayo ama dawladdaada ka sheegayo ka dhab maaha uu kugu dirayaa bartaadu ka dhaqaajinaya tu kale ku geeyana kuma hayo way isagii waa meel uu fadhiistala waxaad khiyaastaa marka inagu go'aan gaarayno 2003 baa seminaar isugu yimaada go'aan 2 maalmood 3 maalmood bay fadhiistaan go'aan bay ka gaaraan waxay soo saaraan murti ka soo baxday go'aan ka soo baxay bay soo saaraan kaasay ku dhaqmaan oo ku heshiiyaan wada saxiixda haday xisbiye yihiin iyo haday tahay mid dawladeed iyagu waxay isu keeni kari la'yihiin 500 oo qof oo go'aan ka soo baxo ma dadka 500 oo qof isu keeni kari waay ma dad inta ay xukumaan aanay gaareen in stuudiyogan intuu leeyahay ka yar yahay ayaa talo weydiinaysa oo rumaysanaysa talaabadeena ayeenan ka tagin teenana qurux badan teenana wanaagsan teena lagu faano kuwa 500 isu keeni kari waay shicibkoodii muxuu haystaa shicibka intaas oo milyan oo dad oo ku nool Soomaaliya min daba ilaa dacal maxay haystaan ku nool yihiin 2-3 kun oo qof oo ku nool wax inta hay'adaha la siiyo la isku diro iyo wabkaas ayaa dalka oran haysata laakiin se shicib weynihii may u baabay adduun ma haystaan horumar may gaarin wax alaala waxay haystaan ma jirto inta in leegna inaga haysana marka ayaan la duufsanay ka weynaado ka waantooba oo ku kalsoonaada Somaliland teenaas ayaa qurux badan teenaas ayuu dhisanayna teenaas ayuu wanaajisanayna sidoo uu sheegay walaalkay Fadal iyo uu sheegay Maxamed Abtigay waxa wax daartan markii dhisay oo sees baa laga bilaabay maanta sees adag baynu ku fadhanaa gidaaradii baanu dhisanay daboolkii baa inoo haray rinjiyeyntii baa inoo haray qurxintii baa inoo haray wasi wanaajintii baa inoo haray meel wanaagsan baynu maraynaa ilaahay loogu mahadnaqo alxamdulillah ma intaasay haystaan iyagu ma intan ma haystaan maya weeye marka aad baad ma santahay horumar iyo nabadgelyo iyo dawladnimo waynu soo sameynay haddii aynu ama isdhaliilo ama istoosino maxaad adigu oran lahayd hala sii kordhiyo waliba oo aynu sii horumarino aad iyo aad baad mahadsantahay bismillaahi raxmaani raxiim horta runtii inta wax badan oo aynu qabsanay oo run oo xaqaa'iqa maxamed iyo adniba way ka hadleen waana maxaan ku raay wax dee laga dheregsan yahay umadiinuna ay ogtahay mushkiladda imankeena haysataa dee dalalkii adduunka la mid manihin kow miisaaniyaddeena markaad eegto waad aragtaa intay tahay maxaan ku raay dad weliba silic iyo darxumo iyo caynkaa lagu soo ururiyey musaacado dibadeed oo aynu helnaa iyo kaalmo dibadeed aynu helnaa ma jirto waxayna sugaysaa tacliintii waxayna sugayaa caafimaadkii waxayna sugayaa maxaan ku idhaahdaa dee infrastructurekii oo dee moogtay meelo fara badan khaasatan bariga oo kale aanay dee xoog
aanay usoo kicin oo kaalintii caalamkuna inaga dhiman kaalintii caalamkuna inaga dhiman marka intaa marka la eego biniaadmigu isku tashadaa way waxay naga dhiman innaga inaynu qaadno marxalad taqashufa oo ah horta marka hore dee dayaxa wuxuu maraykanka ku gaadhay cashuuru dadka ka qaado ya dawladdu cashuur ay qaato ayay dee hubka intaa la egiya adduunka intaa la egiya halkaa ku gaadhay dawlad tiraada cashuurba qaadi maayo amba cashuurtay qaadaa ay tahay mid aan la qaadin amba aan la bixinay maanta haddaan qaado masalan kasoo qaadno waxaan loo yaqaano interest rateka income tagaska income tagaska markaynu saddexdan dawladooda inagu xeeran eegno markaynu eegno jabuuti markaynu eegno etoobiya markaynu eegno kenya waxay u dhexeeyaan 30 ilaa iyo 35 boqolkii income tagaskii waa dawladaha dhisan in ictiraaf raadinayeen waxba raadinayeen safaarada dibadeed dee wax walba haysta ayaa haddana caynkaas innagii wuxuu marayaa interest ratekeenii bank maxaan ku dhahay baan xeerkii inoo yaala 10% ilaa hadda income tagaskii 10% kaasoo weliba dee qumcuqumcdiisa iyo baxashiisu dee ay badan tahay horta waxaan odhan lahaa anugu maxaan ku dhahday dee adduun baa wax keenay ya horta adduunkii dee inaynu sidii ay dee dawladdu adduun ay wax ku qabato yeelan lahay in la sameeyo qabyaaladda ka tegi mayna inta faqrigu jiro weligiin intii faqri jiro iyo qabyaalad waa walaalo ninkii inta uu maxaan ku dhahday tol u baahan yahay ee markuu gaarigiisu gaari kala jeedo amba uu qof ku dhinto iyo soo ururiya iyo soo qara odayacaynka u baahan yahay dee odaygii unbuu ku xidhnaanaya laakiin markuu inshuuran jire ee uu iska bixiyo isaguna liisankiisa uu ku daro maxaan ku dhahay inshuuran yar ku daro oo inshuurankaana weliba anugu aan jecelahay maanta Soomaaliland waxaad moodaa xagga capitalismka Mareykanka inaynu beredheeraysinay oo public private ownershipki inagu yar yahay oo more capitalist oo dhinaca kale ay noqon in la yar khafiifiyo dawladdu dee public maxaan ku dhahay warshado la wada leeyahay ama imka inshuuranka oo kale inay dawladdu qabato oo weliba dad aamina loo dhiibo oo banka dad aamina loo dhiibo oo banka central banki la soo celiyo weliba central bankeenu central banki adduunka uma dhigmo wuxuu hayaaba ma jiro waa bakhaar yar oo lacag lagu ururiyo marka shuruucda caynkaas ayaynu horta u baahannahay in wax laga bedelo marka kuwa marka wax laga bedelo inta macaash maxaan ku dhahay kharashka waxa yar la isku geegeeyaa oo wax noqdo waxaynu noqon lahayn maxaan ku dhahay wax badan ayaynu qabanayna tacliinta dhismaha imika iskuuladii private-ka iyo iskuuladii public-ka isku mushkiladayna meel kasta waxa weey private-kii baa ka bahalaysa marka dayrankii qabyaalad sidoo uga tagaya marka private cid reerkiisa oo lacag ka bixinaysa jirta ayna dawladdu oranay ana damaanad qaaday soo garmaysid oo waxaagii bixinayo ka ku sameynay weliba waxay noqonaysaa maxaan ku dhahday mid maxaan ku dhahay caynka marka waxaan oran lahaa horta taa la kordhiyo in safaaradaha dibadda inaga jooga way badan yihiin baa la yiraahdaa dad badan baa lacag badan baa dee lagu qaataa in dawladda ha ku jiraan dadka noocan oo kale ismaaniyo maxaan ku dhahdaa iyo adoo kale oo dee khalfiyad leh oo dee aan iyaga imika inanka yar ee maxaan ku dhahay jaamacadda imika ka baxay durbaba maxaan ku dhahay 100 arrimood sugayaan guur iyo guri iyo gaari iyo sugayaan markaad wax yar u dhiibtay meel yar masabgeyso goortu dee ka soo gayooba waxa dee waxa xariir fadhaal kala dhacay marka midda kale inay yaro loo talin karo oo jawaab celin karin aan sameyn karin hadduu foreign-ka joogo hadduu dibad joogo hadduu meel kale joogo oo taariikhdaadii iyo wixii aad soo martay way aragnimadaadii aan ma keeni karo guul ma keeni karo dad bisil in horta mataqaanaa loo dhiibo oo wasaaradda khaarijiga safiirada la magacaabayo ee maxaan ku dhahay meelaha jooga waxba inay bataan maaha dawladaha aynu isleenahay way very influential bay in la dhigo inta kale jaariyadaheenu waa diyaar dadkeenu aad iyo aad bay xagga ay ugu wanaagsan ninka halkaa jooga Yurub inta dawladda Yurub ay u dhow wuxuu ka sameyn karaa jaariyado maxaan ku dhahdaa shaqeeya oo active oo mutacallimiin oo dhinacna ka shaqeysanaya dhinacna dalkooda u adeegaya marka iskaa wuxuu qabsado inay aad inoogu badato ayaa loo baahan yahay dhaqaalaheena aad iyo aad buu yar yahay haddii kale halkaa aynu dee joogno maanta ma dhaafayno moogta aad baad maasantay maxamed cabdi gabagabada ere baynu kusoo gabagaban doonaa insha Allah waqti badan baad ayaad iyo juhdi badan baa wada geliseen sidii ummadiina aad wax ugu sheegi lahaydeen maxamed ismaan fadal kelmadii laba shacbiga Soomaaliland ee maanta soo doonshirsaday yar iyo weynba maxaad ku dardaari lahayd ee aad oran lahayd qabta ummaday shacbiga horta marka hore dee hambaliya istaahishaan waa soddon ku soo dhawaateen hawlina wali weydin taala waxaan leeyahay guntiga halkii xadhigayaan la dabcinin lagu mitido horta taa ah hadii beed maayo ixtiraafka iyo isku duubnaanteeda
laba waxaan leeyahay dad baa dowladuhu dad bay ku dhisan yihiin dadkeenu maanta wuu koray ka halkan joogaana waa koray ka dibadda joogaana waa koray inaynu awooddaa dadeedee dibadiyo gudo isku xidhanno oo waxoogayga politicska iyo xisbiyada iyo siyaasadda ina dhex gashay iyo kala saarno qaran oo aynu labadu inoo kala socnaadaan taasuna waa laba ta saddexaadna waa ti aan hore u sheegay waktigan duruufaha kuwa aynu iska soo horjeednaana waa soo korayaan akhirka oo dad iyo xoog iyo duli iyo dowlada iyo dhaqaalaba waa la gelinaya inaynu teenaana u toog hayno u diyaar garowno doctor edna shacbiga kolley wax badan baa la canaantaa haddii dowladda lafteeda aynu canaanano iyada maxaad ku odhan lahayd ad adigu dardaaran siin lahayd dowladey horumarkeenu si uu u sii kordho maxay qabtaa odhan lahayd de horta dowladdu waa bini aadam shicibkaasuba dowladduba ka soo baxday marka dowladdu waa inaga dowladdu waa iyo waa inaga waayo codkeennay dowlad ku tahay way inaga mid weeyaan marka ummad is ah ayaynu nahay marka waxa dowladdeedu dhaliil leedahay dee ummadda oo dhan baa yeelanaysa wixii ummadda wanaajisay dee dowladdiiba ayaa yeelanaysa waa maamulkiiba inoo haysa markaan waxaan odhan lahaa intaynu isu wada aynu dhammaanteen meel uga soo wada jeedno oo aynu hawshaa weyn iyo marxadaha waaweyn ka soo gudubnay ee ilaahay nagu soo garab galay halkaa maanta ina soo gaarsiiyey horta kelmadda ugu horeysay aynu u baahnay inaynu dhaano alxamdulilah way ilaahay ayaa la-aantii halkaa maynaan soo gaarnay ilaahay baa inoo suuro geliyey inaynu ka badbaadno xasuuqii dhibaatadii inoo ogolaaday inuu garab galay inaynu dhisano isu keenay ina badbaadiyey marka waxaan odhan lahaa waalidow maanta hawsha waalidkaan saaraya inankaa yaree 14 jirka ah ee 15 jirka ah ee hadal la gashaday lidii uu noqon karaya waalidow waalid walbaba ilmahaaga u caqli celi oo runta u sheeg oo wacyigelintiisa nagala qayb gal waalidow qaado mas-uuliyaddaa ku saaran mas-uuliyadda waalidnimo qaado dowladdana waxaan odhan lahaa fiiro gaar ah loo yeesho meelaha dhibaatooyin ka iman karaan oo dowladda xoogga ha saarto waxaynu leenahay nidaamyo badan baa jira dowladda waxay leedahay indho dowladeed iyo meel indho quraanjimada eegayaan lama garta iyo Soomaaliya tirada indhaha dowladdu way arkayaan meelaha dhibaatooyin naga yimaadaan meel kasta ha ahaatee inaga geejiya oo haddii ay geesko dirka qaloocanayso waxay noogu toosayaan xoogga saara oo shicib iyo dowlad aynu meel uga soo wada jeedno toosinta hanaanka dowladnimo maamul ee dalkeenu u baahan yahay halkaa ka sii wada waalidow inantaada yar inankaaga yar caqli celintiisu adaan kugu hadlaynayna aad baad u mahadsantihiin maxamed cabdi daawud adiguna kelimadaada dardaaranka adigoo dowlad iyo shicib ummadda oo dhan isku kicinaya maxaad odhan lahayd bismillaahi raxmaan raxiim anu waxaan culayska saarayaa runtii oo weli aynaan ka taaban xisbiyada qaranka xisbiyada qaranku dadku dowladun baa la yidhahdaa laakiin dowladdu waxay ka timaadaa xisbiyada qaranka ka timaadaa hadday tahay golaha deegaanka hadday tahay baarlamanka hadday tahay fulinta shacbiga oo ku kala jira de haa halkaasaa laga yimaadaa halka gurigu uu ka hagaaga halka ubadku ka hagaaga waa hooyada iyo guriga halka dowladnimadu ay ka hagaagaysaa waa saddexdaa xisbiye maanta aynu leenahay saddexdaasi dee hadday iyagiiba dhaafi waayaan maxaan ku dhahdaa ninkay soo dooranayaan oday ay u yeedhaan iyo caaqil iyo reer hebel iyo caynkan oo aanay u yeedhin yaa isku fikrada yaa u xaamisan waa maxay waxa la aaminsan yahay adduunku saddex qaybood buu kala qaybsamaa iminka maraykankaasna wuxuu kala qaybsamayaa niman maxaan ku dhahay dimuqraatis oo iyagu doonaya in maxaan ku dhahay dadka hoose iyo dadka masaakiinta kor loo soo qaado iyo niman republican oo iska conservative oo ninka ganacsada ninka taajirka ah la aanu korrino wixiisa si uu kuwa aan waxba haysanin wuxuu siiyo ma aha reer hebel bay kuwa leeyihiin kuwana reer hebel bay oo maanta reer hebel baa qabsanaya oo beritana reer hebel baa doonaya maaha waxa weeye afkaar baa xisbiyadu inay ku legdabaan ay tahay maanta waa inuu jiraa xisbi yidhaahdaa waxaan samaynayaa
maxaan ku lahday dhulkan xadka ilaa xeebta maxaan ku la boobaya la wada qaatay cashuur baan saaraya waa inuu jiraa oo cashuurtii kaga dhabeeya oo beerbitir square waxaan ku saaraya inta haddii kale dadka kama leeyi waxaa u soo bixi lahayd lacag fara badan oo dawladdu ay wax ku qabata ayaa usoo bixa waa inuu jiraa xisbi yidhaahdaa war wax walba waxaa haysta privatekii waxaan samayn lahaa banka wajaalaan mataqaanaa askartayda intaan u yeedho inta ilaalinaysa cadkuyaan inta kale ayaan ku biraa ina cigaal berigii waxaan garanayaa waxay ahayd baan u malaynaya dayna yar baan ahaa fisid baa naloo geeyey baashii maxaan ku dhahdaa wajaale yacni buuro sarreenaho intay laaleegyihiin aanad malaynayn ayaa markaa mashruucii wajaale oo cagaftiisii oo dadkiisii oo wixiisii wata ayaa mataqaanaa jiray markaa sarreenka berigaa dee ilaa hadda lama hayo wax halkaasuu gaadhay sibirkii halkanuu yaallaa cid alyaala cid ka samaysanaysa ma jirto inaynu dowladaha imika aynu la saaxiibnay amba loo tago oo la yidhahdo warusha sibidh noo sameeya waxaa weli laga hadlayaa 30 sano sheer baan urinaynaa reer hebel baalahoo kanaalahoo keer baalahoo oday hebel baa ka mas-uul waxaasi nansanis wey wax inoo qabanayaanba meelina gaadhsiinaya ma aha ninka carbeed ee maanta loo tagaa ee dad odayaali u tagaa ee ganacsadihii wuxuu diyaar u yahay warsha sibidh oo public private awna dawladdu la yeerto isaguna barkiisa yeesho macaashkiisa oo casriya inuu sameeyo marka dalkeenu waa qani haday tahay maxaan ku raahdaa beeraha haday tahay xoolaha seerayaal baa loo sameyn karaa hilibkan maxaan ku raahdaa aynu dirayno xoolahan aynu dirayno Suudaan markii ariga leeynaga joojiyay masaariq bay sameeyeen slaughter house bay sameeyeen arigii intay qalaan oo haragii ka saaraan de markaa frid faali fever ma qabo arigii oo kana cam intay qariinto Sacuudiga ku barbar Sacuudiga anay qaasinaysa ma jiro arigoodii oo dhamay isagoo furan oo saaka la qalay afartii la qalay ayaa duhurkii lagu qadeynaya ayuu mataqaana hodheeladii oo dhan oo la boobaya markaa masaariq waaweyn oo slaughter houses in berbera agteeda laga sameeyo meelaha xeebaha iyo madaarada meelaha u dhow oo markaa nadiif oo mataqaana meeshii laga markaa waxaan qabaa dhaqaalaha wuxuu u baahan yahay inaynu dib ugu noqono xisbiyaduna bidaat sidan ay yihiin maxay ku kala duwan saddexdeen xisbi lagta frank aynu wada hadalno wax saddexdooda buug hadaan imka soo qaado oo ladin akhriyo waa the same wax de aan la fulin karayno iska oo bada iyo ka kalo intii leego bada deedna hadhow tala de maxay soo kordhiyeen marka wax hadhow tala ugu xisaabtay leeyahay war adigu soo digi lahaa ma aha warshadaha sameynaya war adigu soo digi lahaa ma aha cashuurta kordhiya war adigu soo la cashuurtan dhibaya meed in waxaasi jiraan baa loo baahan yahay laakiin saddex xisbi oo identically meel ina gaarsiin maayaan السلام عليكم ورحمة الله ومعنى وحوي وحلو بسلاد أو حسبيده هككرر ريرو أو شعبي وهككرر ريرو أو اللي يرضى ريرو هككرت أو متهول كرت إن شاء الله آد بان إديكم هالعلنية وحوا برامج كسابسن صدق صندوق أو سومالي اللي سوتشرتي محاوقة بصومي محيسي يكسنيسا وحيقلا قيب قالي محمد عبد داود سياسي يقرأ يبرساب هوري محمد عثمان فضل وزير هوري أو سومالي لان أقويهن سياسي إدنا هذا إسماعيل أقويهن دكتورة ولي بهال أبور يعني هي دلك وحوين وزير هوري هذه يوم وزير هوري إدنا آد بعض فاسنتين وزير خارج هوري مركي ورا الوالي اللي توفي الواحد أقون هذا يتعب كهذا دلك جلسوا أي يقول حق بتشو وزير المدي وزير هروي وزير هوري إنما ضفر الصمد نوع قبل سنة يجينا آد بانوجم هالعلية إن شاء الله برامج شكل أو كان أو كلنا وإنه كل بدونا خياري وحن إذا كم هالعلية وقتك فرح بدن لي الدورتين الله يدين إلى عليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتي لا دغدغة دولة دريا وحدا حشا وحد يديدو ندير اللي بتاوصو دقستين نينكيس نيكتا دشي سوقدا نينكيس نيكتا دشي سوقدا انتي لا دغدغة دولة دريا وحدا حشا وحد يديدو ندير اللي بتاوصو دقستين نينكيس نيكتا دشي سوقدا نينكيس نيكتا دشي سوقدا